السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa kamida Real Madrid oo war farxad leh ka heshay tababarka ka hor kulankooda Juventus Lamine Yamal oo Barcelona u diray codsi ku aadan lambarka cusub Liverpool oo dejisay qorshe fududeynaya saxiixa Marco Guehi saddex sababood ay Cristiano Ronaldo ula soo saxiixatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal Victor Gyokeres oo hanjabaad u diray madaxweynaha Sporting Lisbona aynu ku bilownay Real Madrid ayaa heshay war farxad leh koor kulankooda wareega 16 koobka kooxaha adduunka oo ay la ciyaarayaan Juventus kadib markii saddex ciyaaryahan oo muhiim ah ay tababarka dib ugu soo laabteen tababaraha kooxda Xavi Alonso ayaa sheegay inay jirto fursad weyn oo Kylian Mbappe uu kaga qayb qaadan karo kulanka weeraryahanka 26 sano jirka ayaa sheegay saddexdii kulan ee uu ciyaaray wareega gruubyada sabab la xiriira xanuun caloosha oo lagu arkay ka hor bilaabashada tartanka Alonso ayaa saxaafadda u sheegay subaxnimadii ayaan la hadalnay si aan go'aan kama dambaysa u gaarno laakiin fursadda uu ciyaari karo waa mid weyn sidoo kale daafacyada Eder Militao iyo Dani Carvajal ayaa diyaar ah kadib markii ay ka soo laabteen dhaawacyo Madrid ayaa ilaa hadda tartanka ka qaadatay 2 gool iyo 1 barbara waxayna higsanayaan inay u gudbaan wareegga sideedamaadka iyadoo la filayay in Mbappe safka kulankani uu qayb ka qaato Lamine Yamal ayaa codsaday in dib loo dhigo shaacinta nambarkiisa cusub ilaa ay maalinta dhalashadiisa ee 13 Luulyo sida uu sheegay wargeyska Barcelona ayaa markii hore qorshaysay in si rasmi ah loo soo bandhigo lambarka cusub ee Yamal ka hor inta aanan la shaacinin funaanada cusub ee xilli ciyaareedka 25-26 taariikhdu marka ay tahay 2 Luulyo laakiin weeraryahanka daada yar ayaa doorbiday in la sugo ilaa ay dhalashadiisa si xilligaas uu noqoto mid gaar ah oo macno weyn ugu fadhiday isaga funaanada nambarka 10aad ayaa banaanaaday kadib markii Ansu Fati amaah ugu wareegay Monaco waxaana la filayaa in Yamal uu noqdo ciyaaryahan ka xiga ee xiran doona lambarkani caanka taasi oo calaamad weyn u noqon doonta horumarka kooxda kubadda cagta ee Blaugrana Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay u soo bandhigto Crystal Palace xidiga garabka Scotland Ben Doak si uu qayb uga noqdo heshiiska ay ciyaaryahanka Marco Guehi ku doonayaan Reds ayaa qorsheynaysa inay la soo saxiixato daafaca dhexe kadib markii ciyaaryahan Gerald Kwanza uu go'aansaday inuu ku biiro Leverkusen kooxda haysata horyaalka Ingiriiska ayaa tartanka la kulmaysa Newcastle iyo Manchester tartanka loogu jiro saxiixa Guehi sida laga soo xigtay The Sun Crystal Palace ayaa doonaysay inay la soo wareegto ciyaaryahan Doak xagaagan kadib qaab ciyaareed wacnaa ee Champions League xilli ciyaareedkii hore xilli uu amaah ku joogay kooxda Middlesbrough waxa uu dhaliyay 3 gool waxaana caawiye ka ahaa 7 kale iyadoo Boro ay ku dhameysatay kaalinta 10aad ee horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska Liverpool ayaa haatan heshiis shakhsi ah la gaartay daafacani iyadoo ay doonaysay in isweydaarsi Crystal Palace ay la gasho kooxda Arsenal ayaa si degdeg ah u dhameystirtay saxiixa xidiga Brentford ee Cristiano Ronaldo Arsenal ayaa subaxii lala xiriirinayay xidiga iyadoo galabnimadii heshiis la gaartay xidiga ayaa haatan isku diyaarinaya inuu maro tijaabada caafimaad ee kooxda haddaba waxaa jira 3 sababood oo kooxda Arsenal ay ku soo qaadatay ciyaaryahankan khibradiisa Premier League mid kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka maqnaa kooxda qadka dhexe ee Arsenal ayaa khibradda bixitaanka Thomas Partey xidiga cusub ee Subimendi ayaa ku cusub horyaalka Ingiriiska mana laha dooq khibradda Partey laakiin Cristiano Ronaldo ayaa si weyn u caawin doona tan iyo markii uu caawiyay Brentford inay u dallacdo Premier League kabtanka Brentford ayaa ciyaaray 122 kulan tartamada oo dhan isagoo dhaliyay 11 gool isla markaana caawiye ka ahaa 13 kale taasi waxay si weyn u anfacaysaa Mikel Arteta iyo kooxdiisa daada iyo hogaaminta Partey kaliya kama tagin Arsenal sidoo kale waxa ka tagay xidiga Jorginho kaasi oo ku biiray kooxda Brazilianka bixitaankiisa waxay kooxda Gunners ku reebtay farqiga u dhaxeeya daadiisa iyo tayada uu kabtanka leeyahay waxa uu awood u yeelan doonaa inuu khibradiisa iyo daadiisa u amaahiyo ciyaaryahanada kale kaasi oo ka caawin kara inay la qabsadaan horyaalka dooq jaban heshiiska Arsenal ee Ronaldo ayaa laga yaabaa inuu kor u kaco 15 milyan oo euro mana aha lacag laga bixinayo ciyaartooy khibrad iyo hogaamin ku soo kordhinaya kooxda doorkiisa asaasiga ee Gunners ayaa noqon doona booska qadka dhexe ee kaydka lacagta ay kooxdu ka bixinaysa ayaa taasi ka turjumaysa
taasi waa qadarka ugu habboon ee lagu heli karo laguna dhimi karo ciyaartoyda tayada iyo noodgaad uu leeyahay iyo maqnaanshiyaha mustaqbalkiisa kooxda uu haatan la qaadanayo. weeryahanka Sporting Lisbon Victor Gyökeres ayaa si adag uga hadlay xaaladda suuqa kala iibsiga ee hareysay mustaqbalkiisa isagoo hanjabaad u diray madaxweynaha kooxda Federico Valverde kadib markii uu diiday in la iibiyo haddii aan lagu helin qiimaha ay kooxdu ku doonayso. warbaahinta Record ee dalka Portugalka ayaa sheegay in Gyökeres uu fariimo gaar ah u diray Valverde wuxuuna Gyökeres ka dhawaajiyay in haddii uu sii wado sheegista waxa uu ku tilmaamay beenabuur uu si dadweynaha uga hadli doono arrinka. xidigan ayaa horey loo siiyay fasax isbuuca ka hor bilowga diyaargarowga xilli ciyaareedka cusub, hase yeeshee haatan wuu diiday inuu ka qayb galo tababarka kooxda ee ka hor xilli ciyaareedka cusub. Gyökeres ay dhaliyay 54 gool dhammaan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa xiise weyn ka helay Premier League Ingiriiska sida Arsenal iyo Manchester United. si kastaba madaxweyne Fernandes ayaa cadeeyay inaysan wax dalab aqbali doonin kaasi oo ka hooseeya 80 milyan. wakiilka Gyökeres Xasan ayaa horey ula galay Vandegaard heshiis is-afgarada oo ogolaanaya in la bixiyo xidiga haddii la keeno lacag 70 milyan ama 60 milyan. diidmada Vandegaard ayaa heshiiskaasi u celinaya in la gaarsiiyo ciyaaryahankan 80 milyan. inkastoo qandaraaska Gyökeres uu soconaya ilaa sanada 2028, Vandegaard wuxuu sheegay Sporting uma baahna inay iibiso Victor, laakiin waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano riyooyinka iyo kuwa ciyaartoyda kale.